maxamed siciid cali oo loo garanog yahay maxamed turki waa 24 jir aandhiisa weli kaga bogan caalamkan quruxda badan balse ka garaadiyay garasho fog dad badan oo lixaadkooda qaba. maxamed waxa uu ku 1995 ku dhashay magaalada Burco 2008 ayuu bilaabay malcaamad quraan isagoo ku khatimay muddo sanad ah. intaa kadib 2011 ayuu bilaabay dugsigiisa dhexe isagoo ka bilaabay dugsiga Sheekh Ibraahim ee magaalada Burco. maxamed waxa uu sii watay hayaankiisa waxbarasho isagoo jeclaa mihnada saxaafadda oo fikirkeedu ku dhalatay sanadii 2007 hase ahaatee waxa uu ku biiray barashada saxaafadda sanadkii 2016 oo ah 9 sano kadib maalinkuu ku fikiray. haddaba bulshada uu ku dhex nool yahay sidee ayay ula dhaqmaan maxamed ama dadka aragga naafada ka ah? maxamed aad baad u mahadsantahay. run ahaantii horta wax caqabada ah oo maaragtay saa u waaweyn bulshadeena igalama kulmaan, waayo bulshadeenu 100% waa bulsho maxaan kugu dhahdaay wax garada amaba se maxaan kugu dhahdaay dhanka wanaagsan u fikiraya. laakiin in yar uunbaa waxaa jirta caqabado igala kulma bulshada maxaan kugu dhahdaay mararka qaarkood waa sometimes maxaan kugu dhahdaa tusaale ahaan marka dee qofku ku arko adigoo ah qof aragga indhaha naafo ka isla markaasina soconaya amaba se isdaberaya, waxaa dhici karta erayo moraal ahaan maxaan kugu dhahdaay qofka niyad jabinaya inuu qofku uu ku dhaahdo tusaale ahaan inuu ku dhaahdo warbalkan indhahala siduu soconayo maxaan kugu dhahdaay qofkan maxaan kugu dhahdaay ma mucjisa waxyaabo noocaas inay dadku ay runtii ay ku dhaahdaan maaragtay taasoo kale waan la kulmaa. laakiin waxa caqabada maaragtay lama kulmo oo maaragtay sida u waaweyn way bulshadu aad bay ixtiraamtaay tixgelisaa isla markaasina ay maxaan kugu dhahdaay maamuus iyo habqadarin wanaagsan ay siisaa. marka laga yimaado garashada iyo caqliga ilaahayna siiyay waxaa jirta waxbarasho dheeriye oo aynu jaamacada uga baxno si aynu ugu maarayno nolosheen. haddaba maxamed waxbarashadiisu ma u suurta gashay si ilaahay ma ku simay inuu dhammaysto? waxaynu ognahay qof kastoo indhaha naafo ka ah ama siday u badan yihiinba inay guryaha baaqi ku ahaadaan marka ay foof tagaan dadka guriga kula nool ama si qaarkood ay waxbarasho u dareeraan. maxamed mar kale aad baad u mahadsantahay. maxaan kugu dhahdaa waxbarashada markii ugu horreysay waxbarasho waxaan bilaabay 2000 iyo maxaan kugu dhahdaay si toos waxaan u bilaabay 2007 ayaan si toos aan u bilaabay. markii ugu horreysay waxaan ka bilaabay dugsi quraan ama maxaan kugu dhahdaay malcaamad quraan. dabadeetana markaa waqtigaas maxaan kugu dhahdaa indhaha maxaan kugu dhahdaay si toosa maxaan kugu dhahdaa dee dhulka ulamaan qabsan. markaa maxaan kugu dhahdaa macaamadaas ayaan ku bilaabay markaa aan tegayo isla markaasina 1 sano ayaan maaragtay kusoo gebagabeeyey inaan macaamadii maaragtay aan ka takharujo qur-aankii kariimka ahaa oo aan barto xifdigiisii iyo maxaan kugu dhahdaay qiraa'adiisii intaba. waxbarasho maadiya isla markiiba waan bilaabay 2009kii markii taariikhdu ay ahayd maxaan kugu dhahdaay bishii 10aad ayaan waxaan galay private la yidhaahdo universal oo ku yaala magaalada Burco. markaa waxaan ka bilaabay luuqadaha ingiliishka iyo maxaan kugu dhahdaay luuqadaha soomaaliga iyo carabida. dabadeetana privatekaas ayaan maaragtay markii ugu horreysay waxbarasho maadi aan ku galay. dabadeedna privatekii markaan luuqadii adigu aan alxamdulilah aan ka bartay maxaan kugu dhahday tafsiirka qur-aankana maxaan kugu dhahdaay aan qur-aanka aan bartay ayaa dabadeedna luuqadii carabiga horta si fiican bay isugu kee furfurtay. tii ingiliishkana privatekaasaan ku qaatay isla markaana aan ku bartay. dabadeedna in igu filan markaan bartay ayaan dabadeedna markaa waxaan bilaabay inaan galo iskuul dawliya. taariikhdu markay ahayd 2011kii maxaan kugu dhahdaay bishii 7aad. dabadeedna markaa iskuulka Sheekh Ibraahim la yidhaahdo aan ka bilaabay waxbarashadii dugsiga maaragtay dhexe oo dugsiga hoose markaa kama bilaabin laakiin class 5 baan ka bilaabay. dabadeedna markaa 2000 iyo maaragtay 13kii ayaan markaa adigu aan iskuulkii dugsigii adigu aan dhameeyay eedkii. sidoo kale waxaynu ka dheregsannahay qofka aragga naafada ka ah haddii uu suuqa ama hawl dibadda uga baahdo inuu u baahdo qof kaxeeya, balse maxamed taa wuu kaga duwan yahay wuxuuna u socdaa sidii qof caadi ah. markaan guriga ka soo baxayo maxaan kugu dhahday waxaa jirta adkaar maxaan kugu dhahdaa dee uu nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo jideeyey inuu qofku maaragtay qofka muslimka ah u akhristo. maxaan kugu dhahdaay marka uu guriga ka soo baxayo iyo marka uu gelayo iyo marka uu suuq qabanayo intaba
noloshayda horta waxaan ku dhisan gareeyay ama ma garanaysaa aan ku saleeyay in aan maaragtay maxaan kugu dhahdaa adkaarta aan akhriyo marka guriga marka ka soo baxayo waxaan akhriyi jiray adkaarta amaba saan akhriyaaba adkaarta guriga lagaga baxo dabadeetana maxaan kugu dhahdaa wadada oo kale markaan marayo maxaan kugu dhahdaa wadada hab qiyaas ayaan maaragtay aan u qiyaasaa macnaha maskaxda bini'aadanka qofka ilaahay maskaxdiisa dee wuxuu maaragtay siiyey awood fara badan oo maxaan kugu dhahdaa qofku dee uu wax fara badan uu ku dareemi karayo soomaaliduna waxay tidhahdaa qofka hadduu ilaahay uu meel ka qaado meel kale ayuu maaragtay ilaahay uu maaragtay u geliyaa magaranaysaa waxyaabihii meeshan kale ee magaranaysaa dee laga qaaday magaranaysaa nicmadii ka dhinayd marka run ahaantii wadada waxaan ku maraa qiyaas maxaan kugu dhahdaa markaan meel ku socdo kale qiyaas aan qiyaastay baan ku socdaa deedna saasaan ku tagaa meeshaan rabay marka maxaan kugu dhahdaa baabuur oo kale dee dhici karta inay kugu soo baxaan marka baabuurtana qiyaas baan iyagana aan kaga beedhaa hadday masaajid tahay iyo hadday suuq tahay intaba runtii maxamed siciid waxyaabahaan kaga yaabay waxaa ka mid a markuu kula socdo horta cidna uma baahna in cid guriga ka soo kaxayso ay suuqa keento u dib u celiso gacanta qabato uma baahna wadooyinka sakadaha halka maxaan kugu dhahdaa gabaadhidu marto wax kasta wuxuu garanaya sideeda aniga inaan saaxiibna Khalid leedahay soo raacnay habeen aan saan u sii fogeynba aan ka baxnay marka xarunta Galad Production kadibna jidka sii soconay ayaan koodi dhagax maxamed dhagax ka bayd dadna wuxuu waan garanay halkan dhagax yaalo ninkii kale marka ila socday baa yiri maxamed miyaa taqaana kadib ushiisi uu sitay ayuu 7 meelood oo wadadii kamid ah marba meel saagu qabtay halkaasina waa gud halkaas waa maxaan ku dhahdaa way taagan tahay oo way yar sareysaa bartaas waa askariga jiifay laamiga wadadii wuxuu kala garanaya meel kasta wax yaala si caadi ah yani waxyaabaha anaga indhaha qablaan aan arki jirin oo laamiga meelaha qaar oo sibir ku qabtay oo yara taagan isagoo toos buu garanay isaga bana tusan gul bartaasna halka sibir ku qabtay way ka yara taagan to hadii aad arkin wad ku tiroonaysa saas uu isaga soconaysa gurtu sheegaya anaguna marba halka uu usha noo saaro ayaan ku eegayna waxa noogu sheego isagoo baruntii caynkaas halku dhahdo waa gud halku dhahdo dhagax bayaala bartu dhahdo waa askari jiif isagoo toos buu garanaya uga tallaabsanaya maxaa kugu dhaca gaariga markaan soo raaco ama nooc kastaba ha noqdo baabuurta yaratiga ha noqdo baabuurta caadiga ha noqdo maxaa kugu dhacdaa laftooda maxaa kugu dhacdaa waxaan sameeyaa iyaga laftooda hab qiyaasa baan sameeyaa waayo markaan iminkaan meel ku socdo meel baan sii calaamadsadaa deedna markaa tusaale ahaan sekada xaafadda looga beedhayo kale waan calaamadsadaa ama meherad caana baan ku calaamadsadaa ama maxaan ku dhahaa suuqa markaan ku socdo kale meel caana baan calaamadsadaa dabadeetana markaa waxaan sameeyaa si dee maaragtay qofku maadaama oo maaragtay dee noloshu ay gedgedoon badan tahay oo maaragtay ay caqabado badan tahay dee si aan caqabadaha nolosha maaragtay igaga imanaya magaranaysa aan ula qabsado waxaan sameeyaa wax kastaba in maaragtay maskaxda ilaahay siiyey aan u adeegsado tusaale ahaan markaan rabo inaan suuqa aado kale maxaan kugu dhahdaa waxaan dhahdaa gaariga markaan soo raaco marka hore waan soo lugeeyaa gaariga noocaan raacaya ama taxi ha noqdo ama bas ama tig ama gaariyaasha caadiga nooc doonaba ha noqdee markaan raaco waxaan dhahdaa meel hebla iyo istaaj tiknoolajiyadda ayaa ka mid ah waxyaabaha saameynta aadka u ballaadhan ku yeeshay qarnigan aynu nool nahay maxamedna kama aradna wuxuu sitaa 2 moobil oo kuwa gacanta lagu qaato ah mid wuxuu isticmaalaa ku hadalka dalka gudihiisa midna wuxuu isticmaalaa dalka dibaddiisa ama social media aynu ku horeyno kan yar iyo dadka sidoo uu kala garto moobilka qofku markuu isoo garaaco maxaan kugu dhahdaa 2 siyoodba waan sameeyaa labada moobilada hortaan isticmaalo qaarna cod maaragtay dadka aragga indhaha naafada ka caawiya ayaa ku xidhan sida moobilka aan ku isticmaalo social media moobilka yare gacantana maxaan kugu dhahdaa waxaan 2 mid baan sameeyaa bahal yaro waxaa jirta microscope la yiraahdo oo dadka aragga naafada ka ay isticmaalaan marka bahasha yar ayaan inta badan marka aan dee lambarada aan maaragtay marka aan waxba ka garan waayo aan tusaale ahaan aan saasoo kale aan u dul saaraa deedna markaan indhaha ku dhaweeyo waan arkaa lambarkii laakiin markaan ka qaado ma arkayo marka haddaanan taasoo kale taa waan ku isticmaalaa lambarada waan ku ogaadaa lambarkaasi lambarku yahay si kalena waan sameeyaayo lambarkii waan qabtaa kadib deedna markaan qabto dhigtaan saa u saaro qofka codkiisii baan ma garanaysaa halow markaan idhaahdo dee qofka codkiisii baan garanayaa oo dee maaragtay anagu inta badan dadka naafada ama dadka indhaha naafada ka haddaan nahay cod baan ku shaqaynaa waayo aragti kuma shaqayno
cod baan ku shaqeynaa codkaas ayaan maaragtay qofkaan maalin aragnay iyo qofkaan aan 10 sano aragnay waa isku kaayimid marka lambarada qaarna qalabka yar baan isticmaalaa qaarna waan qabtaayo deetana marka codkoodan gartaa saasan aan lambaradan ku saleeyaa social media ama baraha bulshada qudhooda kama madhnaa bal aynu eegno sidoo ku bilaabay inuu isticmaalo Facebook iyo qaabka uu isticmaalo runtii social media waa aalad maxaan kugu dhahdaa bulshada maaragtay ku soo korodhay isla markaasina ay imka ay cid walba ay isticmaasho muxuu ahaayay haddii dadka indhaala yihiin haddii dadka caadiga yihiin maxaan kugu dhahdaa dadka naafada guud ahaanba oo dhanba marka la isku wada geeyo dadka caadigaaba imka isku sibaa loo isticmaalaa dadka dee ma garanaysaa dee tusaale ahaan dadka naafada markaan aan u nimaadno kuwa de markaas bartay ama waxbarasho wata ama maxaan kugu dhahay hibe kale gaaraba uu Ilaahay siiyay marka social media waxaan ku isticmaalaa cod baan ku isticmaalaa codkaasi waa voice ku jira mobilka marka uu hadlayaa codkaasi kadib dawladna markaad iminka tusaale ahaan daatadii markaad furto maxaan kugu dhahay wax ku sheegay inaad daatadaad furtay oo aad si fiican u isticmaali karto Facebookii markaad gasho wuxuu ku oranayaa waad gashay Facebookii dadka chat-ka ku fadhiya uu ku sheegaya inta tiradooda ay yihiin kuwa ugu horeeya magacyadooda ku sheegaya dawladna marka qoraalkii maxaan kugu dhahdaa adigu keyboardka baad wax ku qoraysaa deetana codkana markaad keyboardkaada wax ku qorto wuu dhawaaqayaa imka xarafka maxamed imka markaad doonayso m markaad rabto inaad qorto m baad qortay wuu ku oranayaa a markaad qorto i baad qortay wuu ku oranayaa saasoo kula shaqeynaya dadna jumladii markaad qorto ayaa deetana aad meesha space ka taabanaysaa dadna wuxuu ku sheegayaa inaad qortay maxamed oo marka English buu ku hadlayaa maxamed Soomaali kuma oranaya laakiin Mohamed buu ku oranayaa marka tusaale ahaan waxaad qortay ma fiican tahay dawladna marka ma fiican tahay buu ku oranayaa oo marka waa English iyo Soomaali isku jira ayuu kugula hadlayaa marka qalabkaasan ku isticmaalaa social media Maxamed Saciid runtii waa shakhsi isagu isticmaala YouTube-ka soo gashtay fiidiyoodiisa dhanka kale Facebook-ga qoraalada iyo maqaalada ku soo gudbiya WhatsApp-ka si toos ah u isticmaala hadda ogsoono waxaan kugu yiri aragu ka naafiyay haddana intaas oo dhan waa ruux isagu qabsan karaya waan cidna uga baahnay lambarkaaga marka aad u sheegto isla daqiiqadiiba uu xafidaya maskaxdu ku qabanaya kadib inuu ilaawo mar dambe lagama yaabo markasta oo ku baahdana lambarkii aad u sheegtay sidiisii ay ka soo waay runtii horta maalinkii ugu horeysay aan samaysto Facebook-ga dhacdo ayaa maaragtay keentay inaan samaysto waxaan kugu dhahdaa haddaan dhacdada aan marka ugu horeysaan kugu horeysiiyo waxaan dhigan jiray iskuulkan Sheekh Ibraahim aan imika aan ku lahaa maxaan ku dhahay waxbaan ku bartay dawladana maalmaha kamida ayaan anigoo saasoo kale u fadhiyo casharkii aan qoranayno ayaa aan isku class ahayn oo isku kursina aan ahayn ayaa marka waxa uu isticmaalay Facebook dawladna marka waxaan ku iri marka mobilkan mar walba aan dareemay isagoo ku jeeda oo casharadii kaga mashquulsan kadib dadna waxaan ku iri walaal casharayn dhiganayna mobilka ma iska diisido waxaan kugu dhahdaa aad maaragtay casharka ma dhigatid dadna marka waxay igu iri waxaan kugu dhahay qof maxaan kugu dhahay Finland jooga baan la haystaa adiguna samuradan ku hortaalaad wax ka qoranaysaa dadna marka horta waxa aad iga yaabisay kelmadaas dadna marka waxaan ku dhahay iskuul baad joogtaa sidee baad maaragtay aad qof Finland jooga aad ula haystaa marka waxay igu noqotay waxyaabo wax qawaariqul caada ama ma garanaysaa wax de maaragtay ka baxsan garaadkayga oo marka de Facebook wuxuu yahay ma aqoonin waqtiga waan maqli jiray dhigta laakiin wuxuu yahay marka si toos ah ma aqoon dawladna inankii baan waxaan ku iri saad marka waxaan idin ugu Facebook wax la yiraahdo isticmaalaya qofkii saani baas ku arkaysaan waxaan ku iri face to face baas ku qaabilaysaan dawladna marka waxaan ku iri oo ka waran marka anigu ma samaysan karaa dadna marka wuxuu igu iri ma adigu ma samaysan kartid dawladna marka waxaan ku iri maxaa iga hor joogay inaan samaysto maadaama adigu wada aad isticmaalayso kadib dadna marka wuxuu igu iri anigu de aragti baan wax ku isticmaalayaa laakiin adigu aragtidii ma lihid marka saan ku iri oo galaas baan imka kula dhigtaa maxaan kugu dhahay imtixaan baa naga qaaday maxaan kugu dhahday laga yaabaa inaan ka sareeyay marka sidee baan u isticmaali karin dadna marka wuxuu igu iri maxaan kugu dhahday ma isticmaali kartid buu ku soo gabagabay anna marka waxaan ku iri bal inaan isticmaali karo ayaan ku tusayaa dadna maalinkii ugu horeysay ayaan gurigii imi dadna habeenkii markaan gurigii imi baan marka maskaxdayda waxa ku programsan inaan samaysto Facebook
maxaan kugu dhahdaa si aan inanka hadda aan maaragtay aan u tuso inaan waxaan isticmaali karo. kadib dabadeedna facebookii ayaan markaa aan maaragtay inan aan saaxiibanahay inan horta aan ilmaadeernahay baa ka yimi wadamadan qurbaha wax ku soo bartay. dabadeedna markaa waxbarasho jaamacadeed buu soo dhammaystay oo adigu markaa uu fasax ka soo qaatay. inankii baan deedna ku yidhi walaal bal waxaan rabaa inaad ii samayso marka ugu horeysa messageka qaabka loo qoro qaabka loo akhriyo wixii oo dhan buu i tusay. facebook ii samee baan ku yidhi deedna wuu ii sameeyey. horta intaanu ii samayn buu isagu wuxuu igu yidhi oo saad u isticmaali karaysaa. kadib deedna waxaan ku yidhi adigu dee wax kastaaba waa barasha ii samee. kadib deedna facebookii wuu ii sameeyey. deedna toddobaad baan wax 7 casho ka yar ayaan ku bartay qaabkii loo isticmaalayay. deedna markaa inankii baan codsaday igu lahaa maxaan kugu dhahdaa ma isticmaali kartid facebook. dabadeetna kadib markaa facebooka ciwaankayga dhinaciisan oo kale waxaan ku qoray indhala-aantu maaha dhammaadka nolosha laakiin niyad jabku waa nacabka nolosha. deetana inankii baa soo aqbalay. kadib markuu inankii soo aqbalay ayaan deetana waxaan ku qoray welcome my friend oo English ayaan qoray. dabadeetna kadib markaa horta inankii saasaan ku tusay in aan facebook aan isticmaali karo. isagii wuxuu igu yidhi adigii ma tihid guriga igu kaalay baan ku yidhi. deetana inaan aniga ahayn kale ayaan ku tusaya. markaa isagu wuxuu leeyahay waa laguu qorayaa ama adiga ma samaysan. isaga laftiisa la yaabay. deedna inankii markii uu ii yimi ayuu dabadeedna aan tusay inaan maaragtay aan dee aniga isticmaalayo. kadib waxaan ku yidhi dee waxaad ogaataa ilaahay shay kastaba inuu awoodo qofka bini'aadanka lama niyad jabiyo laakiin qofka maxaan kugu dhahdaa dee moraalkiisa saraa loo qaadaa. maxaan kugu dhahaa aragtiduna dee qof walba dee adna ilaahay wuu ku siiyey anna ilaahay wuu isiin karaa adiga ilaahay wuu kaa qaadi karaa aniga wuu isiin karaa. dabadeedna markaa maalinkii koowaad markaan facebookii waxaan commenti baan maaragtay qoraal baan soo dhigay. maxaan kugu dhahdaa deedna qoraalkaa waxaan kaga hadlayay maxaan kugu dhahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan maaragtay nabadgelyada ay haysato iyo wanaagga ay ku naaloonayso aan kaga sheekeynayay. dabadeetna qoraalkii markay dadka arkeen ayaan deedna markaa halkan de waxa ku qoran indhala-aantu maaha dhammaadka nolosha laakiin niyad jabku waa nacabka nolosha. deedna markaa sawir aan anigu leeyahay oo ushan aan haysto markaa aan haystona waan isku soo sawiray. dabadeedna kadib dadkii waxay yidhahdeen ninkan waa nin indhala sideebuu facebook u isticmaali karaa. dabadeedna dadkii su-aalay weydiiyeen. horta taasaa maaragtay wixii ugu horeysay aan maaragtay aan dadka aan la kulmaan ay ahayd. dhinaca caqabadaha kale muuqaalada iga yaabiyay oo kale dee maxaan kugu dhahdaa maalmaha ka mida ayaan markaa cod baan dee aan ku isticmaalaa anigu dee muuqaalkii ma arkayo. dabadeetna markaa hees aan aada u taageeri jiray oo maxaan kugu dhahdaa uu qaado fanaanka allah u naxariistay maxamed salebaan tubeec uu qaado oo tidhaahda maxaan kugu dhahdaa adduunyada nin dhoofiya ninkii degan dhulkii hooyo heesta tidhaahda ayay soo dhigeen facebook. dabadeetna kadib markaa anna maan islahayn waa la dhigi karayaa ma garanaysaa heesaha oo kale ma garanaysaa waa la dhigi karaya daway wax wii cusba. deetana muuqaalkii iga yaabiyey ama maxaan kugu dhahdaa aan markaas ku arkaana kaasuu ahaa. haddaba waxaa isweydiin leh maxaa sababay inuu weriye noqdo. warbaahintu horta waa shay maaragtay aan aada u jeclaa sababtoo ah markii aan yaraa waxaan aada u dhegeysan jiray maxaan kugu dhahdaa idaacadaha walow markaa tiifiyadu ay iska bilow ahaayeen. idaacadda BBC-da iyo VOA-da labada idaacadood baan ku xidhnaa. dabadeedna wariyayaashii waqtiga inta badan ila qaadan jiray ee aan aadka u dhegeysan jiray waxaa ka mid ahaa cabdisalaan ibraahim hariri iyo allah u naxariistay saxufigii weynaa axmed xasan cawke maxaan kugu dhahdaa BBC-da ka shaqayn jiray. dabadeedna markaa wariyahaas ayaan maaragtay maalmaha ka mid ah ayaa barnaamij warbuu akhriyay. deedna kadib deedna warkii baa saameyn ugu raabay maxaan kugu dhahdaa. deedna markaa waxaan isidhi niyow sida ninkaasoo kale maad noqotido warbaahinta maad geshid. maalinkaas horta igu dhalatay inaan warbaahinta aan galo adigu ilaa kulli 2006 meelahaas ay ahayd ilaa 2005 markaa anna dee waan yaraa. markaa maxaan kugu dhahdaa dee maadaama aan guriga ka bixino idaacadaan iska dhegeysan jiray oo aan maaragtay waqtiga inta badan ku qaadan jiray. deedna markii ugu horeysay hamigay koowaad kaasoo ahaa. axmed isagoo ku qanacsan nolosha uu ku nool yahay ayuu bilaabay inuu ka rumeeyo waxa laabtiisa ka guuxayay in badan. waxa uu bilaabay inuu barto culumta saxaafadda isagoo ka bilaabay macadka Al-Jazeera ee magaalada Burco. horta halkii ugu horeysay ee aan ka bilaabay warbaahinta barashadeedii markii ugu horeysay waxaan ka bilaabay barnaamijka Al-Jazeera la yiraahdo oo ku yaala magaalada Burco.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macalinkaygii maxaan kugu dhahdaay warbaahinta markaasi baray sida wanaagsan ii gacan qabtay Salaamaan Axmed Xuseen Salaamaan Naajix oo runtii si maaragtay gacan qabasho wanaagsan ay siiyay maxaan kugu dhahdaay ardayda kale warbaahinta markaa nala dhiganaysayna maxaan kugu dhahdaay si aan markaa aan iyaga u gacan qaban aniga gacan qabtay aan ku kulanay dugsiga Al-Jazeera College ku yaala magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ee lagu barto cilmiga saxaafadda waqtigaas oo halkaan ka ah bara saxaafadeed Maxamed waqtiyada kamid ah goobta ay yimi soo doonay inuu ka barto dugsiga cilmiga saxaafadda Maxamed markuu ii waramay in qaabku uu baranayo aan wareystay saxaafadda wuxuu ku doortay markaan arkay inuu aragga naafaka yahay waxay iga waramay inuu hubbigiisa weyn inuu barto cilmiga saxaafadda maadaama kulli weyn lagu adkaato dee waxaan u xubigi jirnay waxa aan dad aragoodu caadi yahay qof aragga naafaka maadaama baradka laga doonayo uu buugaag dhiganayo oo wax fara badan oo ka duwan laga rabo way cuslaatay kulli markaa way ugu cuslaatay waxay noqotay mar haddii ardaygaas uu arday aragga naafaka yahay xubbigiisuna uu yahay saxaafad waxay igu noqotay in anigu si walbaan ugu awoodi karaayo oo aan ula dadaali karayo ula dadaalo waqti ka duwan baan u sameeyay waqtiyada ardayda geli jirtay waxaan ku dhaafay 4 buurahay kale 5 buurahay aan xisida bilaabi jiray 4 buurahay isaga markaan u imaado laba bilood waxay noqotay buuggii ugu horeeyay oo 20 page inaan isaga ugu soo saaro oo qoraalkiisa buugga ahaa qoraalka farta 16 ku qornaa inaan isaga 24 ilaa heerka ugu dambeeyo uga dhigo marka buugga 20 page wuxuu noqday ilaa 5 buug oo dhameystiran sida daraadeed muddo 2 bilood ayaan kaligii meel gaar ah wax ugu dhigayay oo ardayda ka dhex soocan oo buugga koowaad ugu dhameeyay oo warka sida loo sameeyo u dhameeyay oo barnaamijka sida loo soo saaro u dhameeyay muddada 2 bilood ka bacdi ardayda dhex keenay markaan ardayda dhex keenay wuxuu noqday arday maalmihii practicalka ardayda si fiican loo qaatay warka si fiican u akhri jiray barnaamijka si fiican u akhri jiray ma sha Allah wuxuu gaar heer uu kuwii indhaha qabay ee dareenkoodu saxda ahaa inuu ka heer sareeyo markii uu practicalkii muddadii sida ula qaadanayay uu ka soo dhex muuqday ardaydii oo uu noqday nin barnaamij soo saar noqday war soo saar noqday hamigiisu aad buu dheeraa Maxamed markii waqtigii buugaagtii kale ay u bilowmatay sidii salaag baan u sameeyay waxaan ku wari waqtiyada maalmaha buugta casharada la dhiganayo adigu ardayda ka soo horee si aan buugga gaar kugu dhigo marka buuggiisan gaar ugu akhriyo jiray isagoo farwaawan ugu qoran muddada maalmaha casharka gaarka loo dhiganayna waqti hore iman jiray maalmaha practicalka la galayna ardaydu mar leeman jiray oo practicalka la qaadan jiray Maxamed waxa uu sii watay rumaynta hamigiisa waxaanu tagay magaalada Hargeysa isagoo shaqo ka doontay wasaaradda warfaafinta ee Somaliland isagoo waliba ka qabay rajo aanu ka qabin kanaalada private-ka ah ama si gaarka loo leeyahay haddaba maxaa kala qabsaday isaga iyo wasiirka warfaafinta halkan baan ka tagay Hargeysa tagay waxaan kugu dhahdaa Hargeysa markii aan tagay waxaan markii ugu horeysay jeclaa inaan ka shaqo galo maaragtay warbaahinta qaranka haday TV-ga qaranka tahay ama idaacadda tahay way warbaahin dawladeed oo maxaan kugu dhahdaa xuquuqdaada si wanaagsan loo ilaalinayo hadii markaas lagu qaato dawladda markaa waxaan tagay wasaaradii ugu horeysay wasaaradda warfaafinta ayaan tagay xilligii dalkuna marxaladda kala guurka uu ku jiray bay ahayd waxaana markaa wasiirka warfaafintuna ahaa Cabdilaahi Ismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani dadna ninkaas ayaan markii ugu horeysay aan la kulmay dadna waxaan u soo bandhigay inaan maaragtay aan rabo inaan maaragtay warbaahinta aan ka shaqo galo maxaan kugu dhahdaay shaqo ayaan u soo bandhigtay xirfadeyda wariyeynimana waan u sheegay markaa nasiib darro maxaan kugu dhahdaay imu aqbalin runtii maxaan kugu dhahdaay isagu waxa uu markaa cilada jirta uu iigu sheegay in markaa dadkii xilliga warbaahinta joogay maxaan kugu dhahdaay dad badan oo waqtiga la qoray ay jireen maxaan kugu dhahdaay wax lacagaay wax mushaaraana aanu markaa aanay u bilaabin dadna markaa aniga waxa uu iigu yiri maxaan kugu dhahdaay de haddaan imika ku qorno maxaan kugu dhahdaa wax mushaarayo wax lacaga maxaan kugu dhahdaa de imika si toos aan kugu bilaabi karnaa ma jirto dalkuna marxalad kala guura buu marayaa kadib dadna anigu waxaan ku yiri anigu waxaan ahay oo qof de maaragtay bulshadiisa maaragtay inuu shaqeeyo u taagan waxaan kugu dhahdaa lacagteeda mushaarku de haddii ilaahay qoro way iska imanaysaa laakiin waxaan rabaa inaad maaragtay aad warbaahinta
dee dowladda aan maaragtay aad iga shaqo geliso. Marka anigu waxaan dee odhan karaa uun horta runtii dee waxa qalbigiisa markaa ku jiray ilaahay baa og, laakiin aniga wuxuu igu sababeeyey uun maxaan kugu dhahdaay in dalku marxalad kala guura uu marayo aan imika aanay cid qaadanaynin. Marka runtii horta aad baan uga niyad jabay. niyad jab badan kadib wuxuu u sii dhaqaaqay dhinaca iyo kanaalada gaarka loo leeyahay, balse marnaba ma qabo rajadii uu ka qabay wasaaradda warfaafinta. nasiib wanaagsan wuxuu ku guulaystay mid ka mid ah kanaalada Soomaalida oo aanu ka qabin rajo sida uu sii fogeyd. Waxaan tagay telefishinka la yiraahdo Bulsha TV ayaan tagay. dabadeetana markaa waxaan markaasi aan la kulmay mulkiilaha TV-gaas Cali Faarax Xarbi. markaa runtii si wanaagsan buu maaragtay ii soo dhaweeyey, waanu iqaabilay. shaqadii ugu horeysay ee warbaahintana halkaasaan ka bilaabay. tabintiisii ugu horeysay Maxamed iyo wixii uu dareemay markii uu codkiisa TV-ga ka maqlay. markii ugu horeysay ee aan wax tabiyo waxaan tabiyey barnaamij baan tabiyey. barnaamij diyaarintu waa hawl u baahan baadhitaan iyo dabagal si uu soo gudbiyo barnaamij aan hal dhinac ahayn, maadaama uu Maxamed aragga naafa ka yahay. tabintiisii ugu horeysayna ay ahayd barnaamij sidee ayuu ugu soo baxay hawsha culus. qaabka ugu horeeya horta aan u diyaariyey waxa uu ahaa maskaxda ayaan ka diyaariyey, waayo qofka wariyaha ahi qofka marka uu suxufi yahay waa inuu noqdaa qof wax curin kara ama hal abuur leh ama maxaan kugu dhahdaay daaqada maskaxdiisa ay wax fara badan oo xikmada ay ka soo burqanayso. markii ugu horeysay maxaan kugu dhahdaa qodobkii ugu horeeyay maaragtay aan diyaarinayay farxadu ahaa qaabka lagu helo waxaan ka diyaariyay maskaxda. markii dambe waxaan eegay nusuusta quraanka kariimka aan akhriyay, dadna sida dee lagu helo maxaan kugu dhahdaa ayaan haddana halkaa ka soo dheegtay. haddana markii dambe dadka ayaan waraystay, haddana markii dambe internetkan u galay, haddana dadka naafada markaan diyaarinayna maxaan kugu dhahdaa dee anigaaba dee markii ugu horeysay maxaan kugu dhahdaa qof naafa anaa iska soo qaaday. haddana markii dambena waxaan diyaariyey dadka nolosha maaragtay heerka sare ka gaadhay oo maxaan kugu dhahdaa aan ku soo qaadanayay nin u dhashay dalka Australia oo maxaan kugu dhahdaa markaa naafa ayaan kaga hadlayay. waxyaabahan aad ka howlaya wax kamid ah saxafiyiinta badankooda barnaamijyada way soo qortaan hadhow warqadii bay ka akhriyaan. dadka waxa laga yaabaa saxafiga warqada ka akhriya hal mar hadduu warqada ka jeesto inuu halku marayayba garan waayo. laakiin Maxamed Saciid barnaamijka isagu markuu diyaarsanayo ayuu gibgiisa badhakada ka qabtaa, isagoo xafidsan buu ku imanaya. markaasuu ku odhanaya barnaamijka noocaasaan doonayaa inaan qabto. Maxamed barnaamijku waa nooc walba noo sheeg baad odhanaysayo isagoo sidiisa u diyaarsan buu hal mar sida quraanka kaga baxaya. barnaamijkan ka diyaariyey tahriibkan ka diyaariyey buu ahaa maxaan kugu dhahdaa maalmaha ka mid ah ayaan meel baan marayay. dabadeetana markaa meel baan fadhiyey, deetana markaa waxaan maqlay dad Soomaaliyeed oo maxaan kugu dhahdaa dhibaataysan badda maxaan kuwa qaarkood ay ku dhinteen, qaar ay dooni la digtay, qaar magafe uu haysto. dabadeetana markaa waxaan isiri wacnaan lahayd adigoo maaragtay tahriibka iyo dhibaatada uu leeyahay barnaamij ka sameeya oo barnaamijkaaga la yiraahdo wax ka baro waayaha nolosha oo ah barnaamij aan soo oodmaynin ku soo qaata. dabadeetana barnaamijkaas ayaan diyaariyey. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. waa mar kale iyo barnaamijkeennii wax ka baro waayaha nolosha oo aad toddobaadkiiba hal mar ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Deeq Siciid Cali. qodobada aynu barnaamijkeena ku soo qaadan doono ee aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah aafada tahriibka iyo dhibaatada ay leedahay. xubinta labaad ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaan ayaa iyaduna waxa ay noqonaysaa sidee baa looga hortagi karaa dhibaatada iyo aafada tahriibka. xubinta saddexaad ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaana waxa ay noqonaysaa waa nin ka mid ah dadka tahriibay isla markaana ka sheekeynaya dhibaatooyinkii ka qabsaday tahriibka. qodobadaasi ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenu inta uu socdo daawadayaal. barnaamijkuna waa barnaamijkeenii wax ka baro waayaha nolosha. qof kasta waxaa jira cid uu ka dhambil qaato ama uu ka shidaal qaato ama uu kaga daydo shaqada uu qabanayo. Maxamed waxaanu wax ka weydiinay bal wariyaasha ugu jecel yahay inuu sidiisa wax u soo gudbiyo. dhinaca idaacadaha haddaynu nimaadno wariyaha laba wariye ayaan maaragtay aan aad u taageeraa.
labadaa wariye maxaan kugu dhahdaa waa mid waa cabdixaafid cawil ismaaciil wariye la yidhaahdo BBC da iyo VOA-da labadaba u shaqeeya maxaan kugu dhahdaay inanta kale maaragtay dhinaca wariye xagga warbaahinta qofka kale aan aadka uga taageero dhinaca idaacadda BBC-dana maxaan kugu dhahdaay waa inanta la yidhaahdo maxaan kugu dhahdaay Kawsar Cabdilaahi inanta la yidhaahdo Kawsar Maxamed Cabdilaahi inanta la yidhaahdo yanaan aad maaragtay aan u taageeraa horta labadaa wariye dhinaca idaacadda markay noqoto labadaasaan ku daydaa maxaan kugu dhahdaa aan jeclaa inaan in badan ka dhimbiil qaato laakiin dee wariyihii ugu horreeyey ama aan ilaa alaankaa warbixinihiisa aan dhegeysta Axmed Xasan Cawku ahaa dhinaca TV-yada hadday noqotona wariyaha aan ku xidhanahay aan taageero maxaan kugu dhahday dee aan jeclaa inaan ka dhimbiil qaataa maxaan kugu dhahdaa waa wariyaha la yidhaahdo Cabdishakuur Deyb Maxamed oo u shaqeeya telefishinka Honkeba. maxamed waxa uu saaxiib dhow leeyahay ushiisa oo aan meelnaba uga hadhin waa kan isagoo inoo sharaxaya ushiisa iyo sida ugu wanaagsan ee uu isticmaalo. horta taa lafteeda waxaan u isticmaalaa lafteeda maskaxda talabaad aan u isticmaalana waxay tahay usha maxaan kugu dhahdaa usha ay isticmaalaan dadka aragga naafada ka ah imkaan gacanta ku hayo taa lafteeduna way iga caawisaa in aan maaragtay aan ka beedho dhulka dhagaxaanta ama maxaan kugu dhahaa dhulka kala dhaadheer waayo ushan waxay leedahay lafteedu la qabsi bay leedahay maxaan kugu dhahdaa dadka caalamka ku nool maxaan kugu dhahdaa siiba wadamada reer galbeedka iyo wadamada islaamka qaar badan oo kamid ah maxaan kugu dhahdaa usha dadku way isticmaalaan marka waxaan isticmaalaa ushan ayaan maaragtay marka ugu horeysa horta usha ma ictimaado laakiin ducooyinkaas ka soo akhristaa maxaan kugu dhahdaa maskaxdaydana waan adeegsadaa ilaahina waan tala saartaa ushaydanna maxaan kugu dhahdaa waxaan markaa ku qiyaasaa dhulka aan markaasi aan marayo tusaale ahaan haddaan meel dhagaxa aan marayo usha waan iska horeysiiyaa saasaan u taabsiiyaa meeshii dabadeedna markaa dhagaxii baan arkayaa dee aad ushii aad ku dareemaysaa waa sidii adigoo gacanta ku taabanayo kale dabadeedna ushii marka aan dhagaxaan saa ugu dhufto waad ka beedhaysaa meeshan inuu dhagax yaallo ayaad arkaysaa kadib dabadeedna markaa meel kaloo aanu dhagax olban maaragtay aan maraa meesha hogga ama meesha maaragtay laamigu uu ka yara kala maaragtay dee uu godkoo kale uu ku leeyahayna saasoo kale aan u taabsiiyaa marka dhulka gebi ahaantiina waan ku cabiraa ushanoo magaranaysaa qiyaas maskaxiyana ayaa markaa waxaa wada shaqaynaya haddaan bulshada ay daawanaysa aan si fiican aan u fahansiiyo waxaan ku qiyaasaa marka hore usha ayaan gacanta saa ugu qabtaa waxaa wada shaqaynaya ushii gacantii iyo maskaxdii saddexdaasaa wada shaqaynaya deetana markaa la qabsi maadaama ay waxan ay tahay waxaan kugu dhahay saasaad aad kaga gudbaysaa adduunyadana dee waxyaabaha maaragtay ugu waaweyne maaragtay la adeegsado waa maskaxda iyo maxaan kugu dhahay moraalka qalbiga. dad badan ayaa u haysta qofka aragga naafada ka ah inaan wax sidaasa qabsan karin wax jeclaan karin dadka la kaftami karin soo dhexgeli karin lamaane nolosha ah oo uu weliba isagu doortay aan nolosha la wadaagi karin balse maxamed ayaa taa beeninaya. maxamed runtii waa su-aal wanaagsan haddaan kaaga jawaabo maxaan kugu dhahdaay haa waayo dee maxaan kugu dhahday dee qof bilaadan ama dee markaad tahay aad weliba dee qof dhallinyaro aad tahay dee maxaan kugu dhahdaay dee maalin kastaba dee xiriir waad samaynaysaa social media dee markaad isticmaalayso dabcan waad samaynaysaa dee markaad caadi dee maxaan kugu dhahdaay dee aad dhulkaaga u maraysana dee waad samaynaysaa. maxamed sidoo kale waa wiil bulshaawi ah jecelna dhexjoogga bulshada iyo ka shaqaynta arrimaha bulshada wuxuu warbixin qurux badan ka sameeyey dugsiga dhigoolayaasha ee magaalada Burco war waa kan isagoo inooga faalloonaya waxyaabihii ku kalifay inuu barnaamijkan quruxda badan ka sameeyo. runtii walaal barnaamijkaas waxaan diyaariyey waqtigaas si aan bulsho TV aan ka howlgeliyey marka wixii ugu horeeyay ee igu kalifay waxay ahayd maalmaha kamida ayaan waxaan arkay inan yar oo dhigala oo markaas maxaan kugu dhahdaay faraha dadku ay kula hadlayaan dabadeetana markaa inankaasi baabuurtu meeri jiray markaa waxba muu maaragtay waxbarasho iyo waxba maaragtay dee waqti umuu helin maxaan kugu dhahdaay inkastoo dee dugsiyo dadka dhigoolayaasha ay leeyihiin ay dalka ka furan yihiin laakiin dugsigaana muu tegin dabeedna markaa waxa aan dabadeedna inankii baan maaragtay dadkii noo kala turjuma dabeetana kadib inankii waxaan tusay in dugsi dhigoolayaali uu ka jiro magaalada Burco dabadeetana markaa dugsigii ayaan markaa maxaan kugu dhahdaa aan geeyey oo aan markaa aan ku tashkiiliyey inuu galo ilaa faamiligoodii baan magaranaysaa xataa aan maaragtay markii dambe aan la xidhiidhay dadna inankii dugsigii markii uu galay
ayaan dabadeetana aan runtii waxay soo jiidatay qaabka dadkan maaragtay naafada ee dhigaala ay wax u baranayaan, qaabka maxaan kugu dhahdaa ay wax u dhiganayaan, ma garanaysaa systemka wax u baranayaan. dadna saa awgeed baan barnaamij aan jeclaastay inaan uga diyaariyo si dadka dhigoolayaasha ee aan markaas ama dadka naafada ah ee aan wax baranina ay ugu baraarugaan inay wax baran karaan. maxaan kugu dhahdaa bulshadana aan u soo bandhigo dadkan maxaan kugu dhahdaa haddii wax lala qabto maxaan kugu dhahdaa inay meel sare gaari karaan. marka saasaa igu dhalisay inaan maaragtay barnaamijkan u diyaariyo. kusoo dhawaada meel kastoo aad daafaha caalamka ka joogtaan barnaamijkeennii wax ka baro waayaha nolosha. barnaamijkeennan waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi aan la yeeshay maamulaha iskuulka dhigoolayaasha ee magaalada Burco. waliid kusoo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV iyo barnaamijka wax ka baro waayaha nolosha. mar kale waa kan qof kasta qumanihiisa laabta ayuu ku sitaa, mar labaad ayuu inoo sharaxayaa bal qofka laabtiisa ka guuxaya ama uu jeclaan lahaa in uu nolosha la wadaago iyo sifooyinkeeda. maxamed waa su'aal maxaa kugu dhahdaa runtii waad ila gaadhay su'aasha. warka haddaan kaaga jawaabo maxaan kugu dhahdaa anigu waxaan jeclaan lahaa maxaan kugu dhahdaa anigu qofka qurux iyo maxaan kugu dhahdaa maal iyo waxa kuma qiimeeye waxaan jeclaan lahaa qof diin leh oo akhlaaq leh oo maxaan kugu dhahay bini'aadantinimo leh oo naxariis leh oo maxaan kugu dhahay wax kastoo gabadh marwaa lagu majeertaba leh ayaan jeclaan lahaa inaan aan la wadaago ma garanaysaa nolosha. maxamed waxyaabaha aan ka xasuusto ee runtii hadallada aan ka sii nixi jiray waxaa ka mid ahaa markuu xirfadaha ka khudbadaynayo maxamed hadalladiisa waxaa ka mid ahaa waxaan ahayaa wiil aragga naafa ka laakiin qalbiga ayaan indha ku leey oo wax ka arkaa. maxamed waxyaabaha aawiye waxaa ka mid ah maxamed wuxuu arday xaafid qur'aan ilaahay subxaana wa tacaala meeluhu gargaaray runtii dee farxad weyn bay tahay maanta ardaygii aan waqtigaas soo gacan qabtay ee magaalada iyadoo meelo badan saxaafad lagu dhigay laga diiday anigu aan u babaacdhigay aan ugu talagalay inaan wax u dhigo oo ugu talagalay baahi kastuu qabo inaan ka dabooli karo. dee ilaahay way fududey way suurageliyey maantana meel maasha allah oo ilaahay mahadiya oo barwaaqa uu ku gaadhay ayuu marayaa. ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay dhiisa u furo dadaalka si badbaad rajeynayaa nolosha kuma xumayso. waqtiyada aan firaaqada leeyahay maxaan kugu dhahdaa waxyaabaha aan jecelahay inaan maaragtay aan waqtiyada isku dhaafiyo waxaa ka mid ah tusaale ahaan dee inaan ama maxaan kugu dhahdaa aan wax dhegeysto maxaan kugu dhahdaa wax markaa macno leh oo ma garanaysaa aan wax ka faa'iidi karo aan dhegeysto. maxaan kugu dhahdaa sida dee tusaale ahaan aad waxaan u jecelahay inaan dhegeysto tusaale ahaan xagga gabayadoo kale iyo maxaan kugu dhahdaa xagga qur-aanka oo kale xagga gabayadoo kale maxaan kugu dhahdaa iyo dee xagga maxaan kugu dhahdaa riwaayadahoo kale ma garanaysaa iyo dhinaca heesaha laftooduna kama madhna. marka waxyaabahaasaan jeclay inaan isku dhaafiyo inta badan waqtiga. maxamed markaad la sheekaysanayso waa wiil aad u furfuran islamarkaana xataa adiga kaa caawinaya duruufaha ama ku siinaya talooyin dhaxalgal ah. waxaan kaloo aan jecelahay inaan inta badan aan waqtiga isku dhaafiyo marka aan maaragtay aan chance ama fursad aan haysto inaan cid wax u faa'iideeyo ama aan cid wax u dhigo ama aan cid wax u mariyo ama ma garanaysaa qof dee markaa ay maxaan kugu dhahdaa ay xaalad duruufi ay haysato aan u tilmaamo qaabku uga bixi lahaa ma garanaysaa ama uga dabaalan lahaa. sidoo kale wuxuu aad u jecel yahay fanka iyo suugaanta waa kan isagoo ku luuqeynaya mid ka mid ah fanaaniinta uu ugu jecel yahay heesuu leeyahay. runtii fanaaniintoo dhan waan wada dhegeystaa. maxaan kugu dhahdaa anigu fanaaniinta qaarkood unbaan maaragtay kuwan aadka aan u xiiseeyaa kolley oo fanaanka la yidhaahdo Fuaad Cumar maxaan kugu dhahdaa iyo Maxamed Salaabaan labada fanaan ayaan dhinaca ragga aan kolley aan aad u taageeraa. marka waxaan jeclahay in aan qaado hees maxaan kugu dhahdaa uu sameeyey maxaan kugu dhahdaa Maxamed warsame Ibraahim Hadraawi oo uu Maxamed Salaabaanna uu qaado oo markaas aan maaragtay mararka qaarkood aan dhegeysto waa heesta hooyo la'aanta.
hooyay la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno iftiin lama heleeno dadku uma hayaamin dayaxeega joogo hooyay la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno iftiin lama heleeno dadku uma hayaamin dayaxeega joogo sida had ma fuuli hilikood ka lulato hawe laguma gaadhin hubka laguma tuurin cirka hirarka muuqdo ruuxa taagaystiyo usha midhadu haystaa hilintoosan weligii ka habaab maaye hooyoy addoomo halkay maanta joogaan adiga u horseede intaad hanad xambaartee haaneedka siisee hordada jaqsiisee adigaan istaabiyo tiro lagu helayne markaad nin hiilo laga baqo hashiisiyo lama hiro dhashaaba hooyo lagu xasuustaa markaad nin hoolo marti hagarta geliino gurigiisa habaqlo soo halliyo hayntiisa quudho washaay geystiyo lama hura dhashaaba hooyo lagu xasuustaa. maxamed imika wax telefishin ah ama institution ah kama shaqeeyo duruufo uu carabaabay awgood waxyaabaha ka hortaaganna waxaa ugu waaweyn. telefishin kale inaan ka shaqeeyo runtii hal mid baa iga yara hortaagan de hargeysa oo kale maxaan kugu dhahdaa de imka family badan oo maaragtay imka haddaan hargeysa tago dee telefishinada maaragtay de ka jira dalka way qaadan lahaayeen maxaan kugu dhahdaa laakiin hargeysa ayaanan markaa meel adigu de aan markaas aan joogo aanan ku haysanin oo maxaan kugu dhahdaa dee family macnaha cidaan la noolaado burcana dee maxaan kugu dhahdaa maaragtay dee wax tv ah ma garanaysaa tv kastama de markaad tagto wuxuu ku odhanayaa adigu gaarigaaga isku wad maxaan kugu dhahdaa de hadday qalabkaagii tahay haddii kombiyuutarkaagii tahay haddii maxaan kugu dhaha qaabkaad waxu duubanaysa ay tahay dee adigu waa inaad maaragtay ad wixii aad duubataa dabadeetana markaa maxaan kugu dhahdaayey marka tv-ga dee xaruntiisa joogto laakiin isagaa kuu duubaya ku gacan qabanaya. haddaba isaga oo ku ilaashanaya mihnadiisa warbaahineed si aanay uga lumin wuxuu samaystay YouTube ama kanaal oo ku soo gudbiyo barnaamijyo macquul ah walow aanu haysan agab dhammaystiran iyo cid ka caawisa toona. haddana wuxuu weli ku dhagan yahay ama uu ku adkaysanayaa inuu waxa laabtiisa ku jira u soo gudbiyo bulshadiisa. horta maaragtay weli kamaan maaragtay rajagooyin maxaan kugu dhahdaay aan tv aan u shaqeeyo waanan jecelahay in haddii aan helo cid aan la noolaado ama cid i qaabisha oo maxaan kugu dhahdaa maadaama dee hargeysa maxaan kugu dhahdaa dee tviyadii ay xarumahoodii ay ka furteen oo maxaan kugu dhahdaa dee tv markaad tagto dee ay noqonayso maadaama dee qof si gaara loo caawinayo aad tahay dee inaad tv-ga aad xaruntiisii barnaamijyadaada aad ku duubto maxaan kugu dhahdaayey haddii horta aan helo cidii qaabisha ma garanaysaa amaba se aan helo maxaan kugu dhahdaa meel aan ku noolaado waan jecelahay inaan maaragtay aan tviyada aan ka shaqeeyo anigoo maaragtay fursaddan ka faa'iidaysanayana waxaan aad u jeclaan lahaa maxaan kugu dhahdaa fursaddan aad siisay Somali Show waxaan jeclaan lahaa maxaan kugu dhahdaay dadka horta dee maaragtay wariyaasha ama ma garanaysaa qofku markuu qof naafaa uu yahay isla markaasna uu qof dee wariyaa yahay maxaan kugu dhahdaay dee bulshada wax badan oo xaqaa'iq ah uu soo gudbin karaya. marka anigu maanta waxaan jeclaan lahaa in maxaan kugu dhahdaa idaacadda raadiyo hargeysa ma garanaysaa aan boos ka helo waayo halkaygan anigoo joogaan ka shaqayn kari lahaa laabtonkii dee wixii barnaamijyadii waan ku edhidgarayn karaa waan ku jarjari karaa marka taasaa iyo howl yareed horta taa aad baan u jeclaan lahaa in layga gacan qabto. dhinaca mihnadaydii warbaahintu runtii maaragtay kamaan tegin
haddeer waxaan leeyahay YouTube channel maxaan kugu dhahdaayay aan anigu markaas aan samaystay isla markaasina aan ku soo guro barnaamijyada maxaan kugu dhahdaayay warbixinaha aan markaa diyaariyey YouTube channelkaygaas maxaan kugu dhahdaayay waxaa ku qoran Maxamed Turki channel oo maxaan kugu dhahdaayay ereyga Turki uu maadaama naanaysi yahay maxaan kugu dhahdaayay waxaan ku qoray Maxamed Turki channel qofkii jecel inuu daawado uu booqan karaa waxaa kamid ah maxaan kugu dhahdaayay in aan maaragtay aan barnaamijyo badan oo maaragtay dadka tusaale ahaan dadka qofku adigu runtii barnaamijyo badan ayaan sameeyey barnaamijyadaas aan soo geliyey waxaa ka mid ah 3 barnaamij baan aan imka alaaba aan soo geliyaa mid waxaa la yiraahdaa barnaamijka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa barnaamijka sirta nolosha ayaa la yiraahdaa marka magacaas uu leeyahay waa barnaamij marba aan wax kaga hadlo waxaan kugu dhahdaayay waxyaabaha marka aan isleeyahay bulshadu way u baahan tahay in aan kaga hadlo barnaamijka kalena waxaa la yiraahdaa sheeko xiiso badan xogaal u noqo oo waa sheekooyin mala awaala ma garanaysaa qaarkoodna ay run yihiin qaarna ay run noqon karaan laakiin sheeko aan anigu sameeyay barnaamijka saddexaadna waa barnaamij qisooyina oo maxaan kugu dhahdaayay qisaskii adduunyada ka dhacay kuwii diiniga ahaa kuwa caalamka ka dhacay inta baan kaga sheekeeyo ugu dambeyn waa kin Maxamed marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan ku mahad celiyo adiga Maxamed Cabdi Cismaan oo barnaamijka Soomaali Show igu marti qaaday marka koowaad waan kaga mahad celinayaa wareysigaasi aad maaragtay aad iga qaadayso mar labaadkana waxaan mahad celinayaa tiimkaaga kula shaqeeyana aad baan ugu mahad celinayaa maxaan kugu dhahdaayay su'aasheeda haddaan soo noqdo aad weydiisay horta dhinaca dadka bulshada waxaan maaragtay aan rabaa inaan maaragtay aan u sheego maxaan kugu dhahdaayay dadka naafada ah waa dad leh maxaan kugu dhahdaayay xuquuqda aad idinku aad leedihiin hadda maxaan kugu dhahdaa qofka caadiga ah ee lixaadkiisa u dhameystiran yahay maxaan kugu dhahdaayay waxa uu jecel yahay inuu si wanaagsan u noolaado maxaan kugu dhahdaayay uu wax kasto maaragtay noloshiisa maaragtay kaabaya ama maxaan kugu dhahdaayay heer wanaagsan gaarsiinaya uu helo qofka naafada ahna saasuu maaragtay ugu baahan yahay marka bulshadeena waxa dhacda in mararka qaar kood dadka naafada ah ay kala kulmaan maaragtay maxaan kugu dhahdaayay caqabado badan ama ku jees ama maxaan kugu dhahdaayay dhayalsi marka horta marka koowaad waxaan bulshadaan u soo jeedinayaa inaan dadka naafada aan la dhayalsan maxaan kugu dhahdaayay qofka markuu naafo yahay maxaan kugu dhahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa naafanimada iyo xabaalahaba oo lagu soo biiraa baa leeyahay marka maxaan kugu dhahdaayay marka adigu maanta oo kale xagga jeeska haddaad ku jeesto qof naafa beri ka maalin baad adbaad noqon kartaa qof naafa ma garanaysaa aad sidiisii oo kale aad noqon kartaa ta dawladana waxaan u soo jeedinayaa dawladda Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa maxaan kugu dhahdaayay madaxweynaha iyo dhammaan dawladda oo dhanba dadka naafada ah maxaan kugu dhahdaayay gobolkan Togdheer iyo Somalilandba aad bay runtii ay ugu dayacan yihiin maxaan kugu dhahdaayay waxa loo baahan yahay maadaama dawladda aad tihiin oo ilaahay uu maxaan kugu dhahdaayay uu xilkan uu idin saaray aakhire la idin weydiinayo in dadka naafada il gaara lagu eego oo maxaan ku fiiro gaara loo yeesho hadday dhinacii waxbarashada tahay waxbarasho ma haystaan hadday dhinacii nolosha caadiga ay tahay maxaan kugu dhahdaayay saamiga ay ku lahaayeen maxaan kugu dhahdaayay hadday shaqo abuur tahay hadday tahay maxaan kugu dhahdaayay inay siyaasadda dalka ay maaragtay ay ka qayb qaataan haddii ay tahay maxaan kugu dhahdaayay nooc kastaba weli qaybtoodu way maqan tahay marka waxaan u soo jeedinayaa dawladuna inay maaragtay dadkaas ay support garayso oo ay isgarab taagto waayo maxaan kugu dhahdaayay wadamada caalamku waxa ay maaragtay heerkaas ku gaadheen maxaan kugu dhahdaa dadkooda naafadaabay ay ilaaliyaan intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka toddobaadkan muuqaalada quruxda badan ee idin soo gaadhaya waxay ka kala imanayaan gacmaha Maxamed Akram iyo Samiir Rios dhanka farsamaduna waa Samiir Saalax Raage tan iyo intaanu toddobaadka dambe ku kulmayno barnaamijkan lamida waa anagoo isku duubano idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh